soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii Ebraale laga helana maanta waxa ugu waaweyn ciidamadii ugu badnaa ee Djibouti oo lagu arkayo gudaha magaalada Sayla si ay qayb uga qaataan dhisidda maamulka Guban State dhaqdhaqaaqyo ceenkee ah ayay halkaasi ka sameynayaan ciidamada Djiboutiyaanka muuqaalkan ayaan saaxiibayaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan galabnimadan haddii Ebraale laga helana waxaa ka mid noqonaya ciidamada Somaliland oo dagaal ku qaadayaan ayna doonayaan in ciidamada Djibouti la soo geliyay Sayla ay duulaan cad ay ku qaadaan haddaba dhaqdhaqaaqyo ceenkee ah ayay wadeen diyaar garow noocee ah ayay sameeyeen ciidamada Somaliland oo ku haya xogtaasi oo faahfaahsan sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii Ebraale laga helana waxaa ka mid noqonaya askar ka soo goosatay Somaliland oo markaa lagu qabtay tuulada Durdur iyagoona halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada geesiyaasha ee madaniga ee beeshiisa maxaa halkaasi ka soconaya tiri intee leeg ayay ahaayeen ciidamadaasi halkaasi laga qabtay maxaa bis ahaantana ay u haystaan ciidamada kuwa beeshiisa halkee ayay rabaan inay geeyaan muuqaalkan ayaan sidoo kale saaxiibayaal idin la wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal halkan ku daawan doontaan ee soo dhawaada aniga waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii ay tahay markuu ugu horreysay fadlan kanalka rukumo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysiina like garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 100 waa maartay 10,000 oo subscribe wax yar oo kaliya ayaa nooga dhiman ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa sidoo kalena muuqaalkan like garay like meel dheer ayay muuqaalka gaarsiisay like garay si uu meel fog noo gaaro mahsanidin hagaag aynu ku bilaawno ciidamadii ugu badnaa ee Djibouti ayaa markan si weyn ugu soo qulqulaya gudaha magaalada Sayla meeshii Sayla ahayd waxa isku bedeshay dhul ciidamo fara badan halkaasi la geeyo ciidamo aad u tiro badan oo Djiboutiyaan ah ayaa halkaasi la geeyay kuwaas oo qayb weyn ka qaadan doona dagaalka adag iyo waliba sidoo kale dhisidda maamulka Guban State awdal state ay marka hor rabeen way naqan weysay oo iyaga iyo Samaroonka ay ka aragtay duunaadeen balse beeshiisa markan waxa ay rabtaa inay yeelato maamul u gooni ah oo la yiraahdo Guban State iyagu maamulaan balse maxaa halkaasi ka soconaya ciidamo Djiboutiyaan ah ayaa halkaasi si weyn u soo buuxdaafiyay dhowrkii saacadood ee u dambeeyay iyagoona qayb lixaad leh ka qaadan doonaan sameynta maamulka Guban State haddase kuwii Somaliland iyagana maartay waa ay ka xumaadeen oo iyagana talaabo cad ayay sheegeen inay qaadi doonaan balse ciidamadan Djiboutiyaanka ayaa tiradooda kor u dhaafaysa ilaa 300 oo askari ah ayaa xuduudka dhanka Djibouti ka soo talaabay iyagoona soo gaaray Sayla si ay qayb weyn uga qaataan ma dhisidda maamulka Guban State sidoo kale hirgelinta buugga heer ciise ayay rabaan nimankii marka beeshiisa way dhowrkii bilood u dambeeyay wax dagaal aysan galin oo waxa ay wadeen qorshe kale oo weyn oo waxa ay damacsan yihiin inay hirgeliyaan labadaas shay aan idin sheegay oo ah maamulka Guban State si la mid ah buugga heer ciise way ka go'an tahay beeshiisa inay labadaas maartay qodob inay hirgeliso ayay doonayaan waxa ay hadda wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan dhowrkii maalmood dagaalkii dhinaca Somaliland iyo dhanka Samaroon uu Gadaburso ugu imaan jiray uu ka istaagay maxaa yeelay iyaga aqoonta isku galay iyagana way sii tashanayaan oo aayahooda iyo horumarkooda ay ku tashanayaan ciidamo fara badan oo Djiboutiyaan ayaa xuduud ku soo galay iyagoona hadda wixii ka dambeeyay ay bilaabi doonaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay ku hirgelinayaan maamulka Guban State buugga heer ciise iyo waliba sidoo kale xuduudda ciidan iyo muxuu ahaa in ciidamadaasi qayb lixaad ay ka qaataan kuwa geesiyaasha ee u dhaartay deegaankooda iyo dadkoodaba inay garab siiyaan ayay Djiboutiyaanku hadda halkaas u joogaan marka loo fiiriyo guud ahaan xaaladda Sayla waa mid aad u circirayso ciidamo tiro badan joogo waxa ay wadaan in ay si laba jibaaraan xaaladdu way sii bedeli kartaa saacada ka dambayso balse waxa halkaasi ka jiro ciidamadii ugu aruursi waliba sidoo kale garab iyo gaashaan ayay beeshiisu ay helayaan waxay doonayaan wixii intaan ka dambeeyo inay si toos ah u dagaalamaan dhanka kalena waxa lagu leeyahay ciidamada Somaliland ayaa dagaal doonaysa inay ku qaado beesha waa maartay beeshiisa oo ciidamo tiro badan ay keeneen Djiboutiyaanka la keenay halkaas ayay rabaan Somaliland inay duulaan ku qaadaan maxaa yeelay waxa ay ka baqayaan in Somaliland iyadoo hadda garab la'aan ah
in garab kale la tiro maadaama laascaanood iyo gobolka maamulka waqooyi bari halkaasi laga jaray haddana waxa ay doonayaan ama ay diidan yihiin in awdal state la dhiso ama in la dhiso muxuu ahaa in beesha ciise ay yeelato maamul maadaama hadda samroonku ay kula dagaalayaanba magaalada xariirad ayay maamul iyo maaragtay mas-uuliyiin ay u magacaabeen maamul ka gooniya somalilan balse somalilan arrintaasi oo idil ayay kasoo horjeedaa mar kale si toos ayay fooda isku dari doonaan beesha ciise weliba sidoo kale somalilan maxaa yeelay ciidamo tiro badan ayay waxay soo geliyeen xuduudka dhanka saylac iyagoona halkaasi rabaan in ay sameeyaan maamulka guban state balse somalilan ayaa ka hor imaaday oo hadda iyana diyaarinayso duulaan kale oo lagu qaadayo dhanka beesha ciise ah haddii samroonku ay dagaal kula jireen magaalada xariirad markana saylac somalilan iyo beesha ciise ayaa loo kala bixi doonaa oo waxa ay noqon doontaa in halkaasi laisku farsaaro dhowrkii saacadood ee u dambeeyey si weyn ayaa baraha bulshada waxaa u qabsaday muuqaalo iyo weliba sidoo kale sawiraan lagu baahiyey oo ciidamo jibuutiyaan ah ee saylac soo galay sidoo kale beesha ciise waxa ay fariin adag u direen somalilan in ay doonayaan in ay dhistaan maamulka guban state sidoo kale ciidamada somalilan ayaa iyana fariin jawaab degdega ay bixiyeen iyagoona ciidamo tiro badan oo aada u badan ay soo bandhigeen iyagoona sheegeen inaysan ka ogolaanaynin balse waxa ay tani ku muuqataa in israa'iil oo aan weliba aan soo saldhigeen somalilan ay markan bilowday isku dirka maaragtay dadka deegaanadaasi dadka walaalaha ayay qorta isku gelinayaan hadda xaaladda waxa ay markaasi maraysaa mid allow sahla maadaama dagaal beeleedyo weliba sidoo kale in xaaladda somalilan iyo beesha ciise ay noqoto mid cirka isku sii sareysto ciidamo jibuutiyaan ay iyagana dhankooda garab ka helayaan iyagoona doonayaan in halkaasi haddii laisku dhaco ee cashar fiican ciidamada somalilan loo dhigo maamulka somalilan wuxuu ka ordayaa in lasii kala qubo oo hadda maadaama dalal badan ay sheegeen inaysan dhammeen meel dal loo aqoonsan karo balse ay tahay in ay karaala noqdaan balse somalilan ayaa ugu soo jawaabtay fariimihii ay dowladihii u dirsadeen maamulka yuhuudda ee israa'iil iyagoona sheegeen in khadka taleefonka laga aqoonsaday madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ciro balse hadda xaaladda waxay u muuqataa mid aan wax isbedel jirin oo weli maaragtay ay meesheeda taagan tahay haddana waxa ay somalilan taagan yihiin marnaba quusan mayno 30 sano ayaan soo samreynay 60 sano oo kalena hadda waa sii samreynaa ayay leeyihiin ilaa 100 sanoba waan samri doonaa ayay leeyihiin dhanka kale qodobka kalena haddii aan fiiriyona askar kasoo goosatay ciidamada somalilan oo dagaalka faraha lagu gubtay ay kula jireen beesha ciise ayaa gebi ahaanba tuulada durdur lagu qabtay iyagoona sheegeen in ay rabeen inay isu soo dhiibaan askarta la qabtay ayaa tiradooda gaarayaan 18 askari ayay ahaayeen ciidamada somalilan ayayna ka tirsanaayeen dhowrkii maalmood ayayna markaasi duulka ku jireen iyagoo farxad ah balse marka loo fiiriyo deegaan ahaan dhanka ciisuhu ayay kasoo jeedeen oo waxa ay leeyihiin waxaan rabnay inaan isu soo dhiibno oo balse laakiin iyagoo aanan meel ay ciisuhu joogaan meel ka baxsan ayaa lagu qabtay oo markaa duurka ama markaasi qeybo ka mid ah farxadkii duurka ay ku jireen markii lasoo qabtay kadibna waxa ay sheegeen inay rabeen inay soo dhiibaan balse laakiin ciisuhu waxa uu sheegay inay baaritaano adag marayaan hadda gacanta ayay ku haayeen 18 askari qoryihii ay wateen iyo darkii tuutihii ayay markaasi sheegeen inay goordhow saxaafadda ay usoo bandhigi doonaan sidoo kalena haddii ay dhab ka noqoto ama baaritaanadooda lagu guuleystana ay noqon doonto in gebi ahaanba ciisuhu ay markaasi cafis ay u fidin doonaan sidoo kalena ay hubka ay wataan ay kala wareegi doonaan balse xaaladan ayaa hadda u muuqata mid ay dabka kusii shareerayso maadaama hadda ciidamada somalilan ay haddu ay rabaan inay duulaano kala duwan ay ku qaadaan dhanka beesha ciise maadaama dagaalka adag ee u dhexeeyo samaroonka iyo somalilan iyo ciisuhuba uu noqday mid markaasi wareeg ah haddana waxa ay ciisuhu raadinayaan in ay hubsadaan askartan maadaama ay ka tirsanaayeen somalilan sidoo kalena dhanka dadka deegaanka usoo jeeday oo marka kasoo jeeda yihiin waxa ay sheegeen in la qalday oo horaantii intuusan dagaalka ka bidin ciidamada markaasi maamulka somalilan ay iyagu qeyb ka ahayeen sidoo kalena hadda ay noqdeen kuwo farxada balse ay rabeen inay soo dhiibaan 18 askari ayaana markaasi beesha ciise ay si sharci u sheegtay inay gacanta ku dhigeen halka somalilan ay weli aysan sheegin askartaasi sheegatay samroon beesha ciise haddana waxay u muuqataa in warku uu yahay mid sax ah oo isburinayo iyadoona hadda ciidamada kuwa beesha ciise ay gacanta ku hayaan guud ahaan halkaas ayaan jeclahay daawadeel inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan quruxda badan haddii aad halkan ila soo gaartay daawade waxaa tahay qof walba wanaagsan waxaan sin xarle kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo subscribe gelisid muuqaalkan la garay sin share garay saaxiibada la wadaago ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan meesridin